بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دبا channel كنا فرحية كشين أصحاب تقاليد مركل إيه مقال عسلمان وحنا نوضع فول روتين كنا هوشي صباحدي إلا إيو قلبتي قدادي عصريدي محن كراداي بوري هاجاجنتي وحياوها سودان صور دبا داوشة وناكسن لما أنتي وحيدين كعدسنا مقال كديدين سو قال إن الله يكنو صارتان شيرتن هذا النجا بخيلن صور دبا سير ولي هاي سير كفري كدب وحقلنا بستهي saarnaa ka qaaday waxaan soo saarnaa goc cad barkimo cad cad iyo wixii dhan bacad cadaan laga dhigayaa maasha Allah intaas kadib go'ay markaan sariirta aan ku golaysa ujeedaan waxaan soo saaray bustihii markaan soo saaray barkimihiin cadaankaasaan kasoo dhigay labadan barkino yaryarna waxaa waaye saas loo dhaafayaa sariirtii sheekasaas ay kusoo dhamaatay dhinaca kale waxaa rabaa daaha inaan bedelo soo galiyay saa ujeedaanba needka markaan soo galiyay kadib daahiyaan soo saaray daahad saa ujeedaanba waa kaasa qadanaya ubaxyadii aan ugu talagalay inaan dhinacyada aan ka saaro maxaan ku yiraahdaa sariirta قطرزانا ويا ما شاء الله نعكلت وحصوقاتي maxaan ku yiraahdaa unsigii ugu dambeyntii qolka waa kasaas loo soo kala kiciyay ma sha Allah tabarakallah حيلا جنوي وهان حسوستا حناندا حشمانكو هيا هيا وهو وانكو حيري النابد oo sidaadii xambaartay bahanku xadgaynaya xiska hadaan beelinaadaan ku xamaalaya hooyoy xoreeyo ducaa iga yeelxanda babka iyo beerka hooyoyada ku sugan adaan suuranka wadnaha eebba kugu sidkaaye sidan nuura aan faanteen bariiskan furfur dhaadheer dhadhankiisana aan laga sheekeyni karin waa ma sha Allah tabarakallah bariiskii halkaas ayaan ku soo shubay kiilo wax yar dhiman kadib waa dhaqaaya markaan dhaqo biyaan la dhigaya ugu yaraan saacad ayaan biyo la dhigaa insha Allah bariiskan waa markii ugu horeysay aan tijaabiyo run ahaantii aad u xajib galiyay ma sha Allah intaas kadib bariiskii biyo ayaan la dhigay ugu yaraan saacad kadib waa ku soo laaban doonaa dhinaca kale waxaan soo qaatay 1 kiilo oo hilib digaag ah midka oo maxaan ku yiraahdaa lugaha yar maqaar kormaan ka qaad kadib biyo iyo qala ku dhaqaysaa si fiican u soo dhaqaysaa waan soo dhaqay waa soo nadiifiyay intaas kadib waxa u baahan tahay xawaajiyo waxa soo qaatay baaquli waxa rabaa hadda inaan isku dardaro xawaajiyadii marka hore waxaan ku daray kalarka oo cuntada lagu darsado qaadada haafkeeda huruud ah qaadada haafkeeda xawaaji isku dardar ah wax yar oo cusbo ah barbarooniga shiidan iyo kabsar caleen kadib caanahaas mazi walaala caanaha waxa caana garoor waaye ama yogada isticmaali kartaa plain yogada isticmaali kartaa 2 qaado ayaan ku daray kadib waxaan ku darayaa 2 qaado oo saliid ah kadibna waxaan ku daray 1 qaado oo toon shiidan intaas kadib si fiican u walaaqaya intaan le u baahan tahay si fiican marka u walaaqdid alaabta waxa la rabaa in oo maxaan ku raadaay digaaga lagu hagaajiyo alaabta digaaga lagu hagaajin lahaa waaye intaas kadib waxa sameynaysaa xawaajiyadii wixii markaa isku soo qastid hilibkii digaaga oo soo nadiifisay aad ku kor daadinaysaa kadib gacantaada la galaysaa si fiican ay u soo qasaysaa haddii aad channelkan markii ku wareysay aad soo booqato waxaan ka codsanaa subscribe inaad taawatid kadibna gambalelka taawo si muuqaal walba u soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah haddii aad gambalelka taawatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo dhammaantiina muuqaalka idin soo gaar waxaa idin ka codsanayaa inaad share gareysaan oo like tu badisaan waad mahadsantihiin intaas kadib waan soo habeeysaa ujeedama daboolka dhab ku siinaysaa dabka caadiga saaraysaa hadduu gaas hadduu dhuxul yahay dabka u yareeyo 40 daqiiqo kadib waa ku soo laabanayna insha Allah
afartan daqiiqo kadib waa kusoo laabtay. Waaw, caadi ma ahna ujeedaan hilibka kor iyo hoos xitaa waa ka bislaaday, lagama sheekeyn karo. dhinac kale nu gedinayaa. bismillaahi raxmaani raxiim. waa ujeedaan siduu kusoo baxay, innaba caadi ma ahan, asaga dhan dahabi dahabi qurux maasha allah. dhadhankiisa lagama sheekeyn karo. saasa u gedgedinayaa. kadib 5 daqiiqo la dab ku haynayaa. intaas kadib digaagii sheekada waa ay soo dhamaatay. dhinaca kaleeto bariiskan raba inaan kariyo. digsiyan dabka saaray, saliid ayaan ku shubay, basal aan ku daray. basashii markay yara bislaatay waxaan ku darayaa xawaajiyo isku dardar ah, 1 qaado iyo 1 qaado huruud ah. kadib waxaan soo qaatay karooto ilaa 4 xabo. kadib waxaan soo qaatay baradho. baradhada iyo karootada ma bisla, waa soo fiiqay, waa soo dhaqay, waan kusoo daray. kadib biyo ayaan ku daray. biyihii markay karkareen kadib bariiskii oo biyaha la soo dhignay ayaan kusoo gadiyay. intaas kadib waxaan soo qaadanayaa 1 qaado oo zabiib ah, waan ku darayaa. qaadadan dhexmarnaa daboolkan dhab ku siineynaa 16 daqiiqo kadib waa kusoo laaban doonaa insha allah. hadda waa kusoo laabanay, waa ujeedaan saas ayuu kusoo baxay bariis furfur oo kaale iska arag. xiila jannooy waan xasuusta xanaanada xushmaana ku hayahayo waxaan soo qaatay rooga soo jaftafaaya. kadib jikada iska soo xaaqaaya. firinjeerka halkaas dhinacaas dhigaaya. jikada markaan xaaqo waan nadiifinaa, waan tirtiraaya. waxaan rabaa jikadii iyo weelkii wixii dhan markaas kasoo dhaqo. ku xamaalaya hooyooy xoreeyo ducaa iga yeer xandaa babka iyo beerka hooyoyada ku sugan adaa suuranka wadnaha eebba kugu sidkaaye sidaa dhiigahay qalbigaad iga soo hantahay hooyooy subax iyo alle heelkiyadaan ku sugay sunuudan kuu soo dirahaa siirayay la mid tahay oo inaana dhaayaha ku sahaaraan ku saamrilaa hoyooy seegseega wakhtiga u sababahaa oo dagaala ka sokeeya siraacan inoogu wacan isamaxooyo hoy ilahaa saadirbaha waxooge kuu hilo hooboon ku haybiyaa heerkaada ila soo martiyo hafashada xanuun. soo aadnay abuu maacuun waxaan ku dhahay meeshii buuxda. intaas kadib weelkii oo dhan iska soo dhaqaaya. jikada in kolba dhinac kor kasoo tiraan soo nadiifinaya. weelkii oo dhan markaan soo dhaqo oo jikadii aan soo dhameyno waxaan rabaa inaan sameeyo buskud aad u fudud casriya aan inaba caadi ahayn. muuqaalka dhammaysta si aad uga faa'iidaan insha allah. buskudkan waxaa lagu sameynayaa birta oo bistoolada. waxaa soo qaatay 2 koob oo sokor shiidan. koobka koowaad ayaan baaquli ku shubay si idiin muuqato. koobka labaad ayaan ku daray. qiyaasta marka adiga aad samaysanaysa ayay ku xiran tahay. kadib waxaan ku darayaa 2 xabo ukun. 2 xabo ukun markaan ku daro kadib waxaan kusoo darayaa subag. subaga isticmaalayo waa blue banka, subag oo rootiga la mariyo. buskudkan buskudyadii aan hore idinkugu soo geliyay waa uu ka duwan yahay, ma fahanteen? kan waxaa waay kan bastoolada lagu sameynayaa. bastoolad waxaa waay aad u fududahay, hal mar dhag 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 unbaa siinaysaa. 4 qaado subag markaan ku daray waxaan kusoo shubayaa bakeeri haafkiisa oo saliid ah. kadibna waan soo qasaaya. waa inaad si fiican u qastid. marka wixii dhan aad si fiican u qastid waxaan kusoo darayaa 1 qaado oo baking powder ah ama waxaa isticmaali kartaa baking soda. labadooda mid waa isticmaali kartaa, labada waa loo isticmaalaa buskudka. 1 qaado ayaan kusoo darayaa. intaas kadib waxaan kusoo shubayaa 4 bakeeri oo bur ah. yar yar ugu dari kartaa marka aragto burka inuu aad u jilicsan yahay waa kusii dari kartaa, dhib ma lahan. intaas kadib hadda diyaar waayo. waan dhigayaa ugu yaraan 5 daqiiqo. daboola dhab ku siinaysaa 5 daqiiqo iyo ka badan waa dhigi kartaa. hadda waa kusoo laabtay bastoolada tan waa sida hadda idiin muuqato. burkana jiilic waa ujeedaan. burka waxaa la rabaa jiilic inuu ahaado. burka hadduu adag yahay bastoolada ma kuu shaqeynayso, saas ula socda. intaas kadib burkii markaa kusoo rido waxay wadataa 12 nooc ay wadataa. nooci marka adiga arabtada ku habaysan kartaa. ani midkaan doldoleelkaas iyo mid nooc kale ku sameynaya.
midkaan duldaleelo ayaan geliyey kadib bismillaahi rahmaani rahiim daboolka maxaa la dhihi jiray saxankaa saaraysaa kadib dhag aa ku siinaysaa ujeedaan yaa kan dhexda ka bax mis dhahdeen saana qurxe maasha Allah saxankan foornada yariistan ku sameynaya saxankan markuu buuxsamo foornadan gelinaya markuu diyaar noqdo mid kale tan ku celinaya sidoo kale saana ku soo sameynaya qaybta koowaad maasha Allah tabaarkalla ujeedaan qaybta labaadna waxaan ku hagaajinayaa bacdaas oo baking paper-da bastooladan waxaa hadaa isfahantaan aad u fududahay baaldi dhan waxaan ku dhahay buskud ku hagaajin kartaa foornadan gelinaynaa 200 dab kor iyo hoos 15 daqiiqo ayuu ku jiraaya nooca kale saan uu egyahay isagana saan ayuu ku soo baxay saa ujeedaanba hal xabad idinku tusinaya sidoo kaleeto saas la u tuujinaysaa waa isla meeshii burka waxaa la rabaa inuu jilaaciyo fahanteen burka hadduu jilicsan yahay waa isfahmaysaan ugu dambeyntii foornada ayaan kasoo saaray maasha Allah tabaarakallah 200 dab kor iyo hoos 15 daqiiqo ku jiray waa kaasaa lagama sheekeyn karo dhammaantiin waxaa idinku codsanaa muuqaalkan like sartan asxaabtiina u sii share gareysaan jazaakallahu khayran waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo kommentiyadiina iyo weliba dhiirigelintiina gurigaada ku samaysan kartaa buskud muuqaalka lii share gareeyo waa iga codsi hal qof hal group inta ugu daan u share gareeyo waad mahadsantiin waxaa idinkaga tahay khayr iyo caafimaad macasalaam buskudkii sheekadiis waa soo dhamaatay rooti duubduubkaas iyo caanaha macaanka qaab fudud oo u samaysan kartid daawasho wanaagsan gurigaada ayaa ku samaysanaysaa insha Allah soo dhawaada daawasho wanaagsan marka hore waxaa u baahan tahay koob biyo ah koob sokor ah iyo koob caano boora ma fahanteen caano boorahaas ayaa u baahan tahay ayagoo caanaha caadiga laga sameynayo hore waa usoo geliyey laakiin kan waxaa waaye caano booraha ayaa u baahan tahay waa laazim gasaca weyn haddii ay haysan xitaa asoo beegbeega jir suuq soomaha iska soo gado bakeeriga waa u baahan tahay caanaha macaanka supermarket u raadi iyo soo gado iga dhamaaday ma jirto waxa dhan waa iska hal daqiiqo yaa maasha Allah tabaarakallah intaas kadib bakeeriga caanaha ahaa ayaan halka ku soo shubay bakeeri caano boora ah bakeeri caano boora ah bakeeri biyo ah bakeeri sokor ah caano booraha inoo dambeeyaan marka u hore waxaa soo qaadanaysaa digsi dabka ayaa saaraysaa kadib waxaa ku shubaysaa koobkii biyaha ahaa waxaad ku daraysaa koobkii sokorta ahaa intaas kadib waad walaaqaysaa biyaha weli waxaan ku daray koob haafkiis aan ku kordhiyey koob haafkiis oo biyo ah koob sokor ah ayaa dabka saaraysaa haddii aad rabtid hal koob oo caanaha macaanka oo buuxa inaad samaysatid intaas kadib sokorta saasaa laga rabaa inay noqoto saa ujeedaanba inay dhegdhegaysaa la rabaa ayadoo dhan biyo biyo inay kaa noqoto lama rabo wax culus oo adag inay kaa noqotana lama rabo saas markay u dhegdhegayso waxaa sameynaysaa dabka ayaa ka daminaysaa dabka markaa ka damisid qabow markay noqoto ayaa kusoo laabanayna insha Allah waa ujeedaan saasaa la rabaa kasto inay u dhegdhegayso wax fadhiyin inay kaa noqoto lama rabo intaas kadib hadda qabow ayay noqotay waxaad u baahan tahay garaafaha cabitaanka garaafihii ayaa kusoo gedinaysaa kushubsaa ujeedaanba kadib waxaa soo qaadanaysaa bakeeriga caano booraha ahaa waa ku gedinaysaa dab laguma celinayo daboolkiisa dhab ku siinaysaa kadibna si fiican ay u shiidaysaa waa inaad si fiican u shiidid lacalla hadduu kaa cuslaado biyo yaroo kulula ku daraysaa ma fahanta hadduu kaa cuslaado wax yaroo biyo kulula ku daraysaa ugu dambeyntii waa kaasaa maasha Allah tabaarakallah saas ayuu ku soo baxay lagama sheekeyn karo Allah tabaarakallah waxaa dhan inay isugu ka qiyaasiin la rabaa inay biyaha ka bataan lama rabo inay ku yareysidna lama rabo intaas kadib caanihi macaana sheekoosaas ay ku soo dhamaatay burka waxaan samaysanaynaa rootiga duuduubka oo qorfaha ama rooti qorfisa u taqaanidba waxaan soo qaatay bakeeri biyo ah hal qaado leebata ayaan ku daray 2 qaado sokor aan ku darayaa maadaama caanaha macaanka lagu cuni rabo sokor badan uma baahnid inaad ku darsid intaas kadib waxaan ku darayaa xabad ukunta waad ku darsan kartaa waadna ka dhaafi kartaa kadib waxaan ku soo daray 3 koob oo bur ah wax yar oo saliid ah kadibna gacanta la galayaa si fiican ee u qasayaa burkii haddii ay tahay channelkan markii kugu horeysa aad soo booqato waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taawatid kadibna gambareelka taawo si muuqaal walba usoo dhigo uu kugu soo dhici insha Allah burkii waan dhigaynaa hanoo qamiiro intaas kadib waxaan soo shiiday qorfihii markaan soo shiiday halkaas ayaan ku shaqshaqayaa qorfaha markaa shaqshaqay waxaa u baahan tahay ilaa 3 qaado oo sokor ah 3 qaado sokor ayaan ku darayaa qorfihii iyo sokortii waa isku soo walaaqaysaa si fiican marka u soo walaaqdid burka had waa uu noo soo qamiiray ugu yaraan waxaan dhignay 30 daqiiqo burkii markuu soo qamiiray dhinaca kale waxaa la rabaa saxanka foornada ayaa u baahan tahay foornadan waxaa maasha Allah way weyn tahay
midda yariista midda ka weyneed waaye. intaas kadib laba saxan oo waaweyn ee wadata oo macquul ah. waxaa u baahan tahay maxaan ku raadayay baking paper-daas ama warqadaas haddii ay heli karin saxanka waxaa marinaysaa subaga marinaysaa ama saliida marinaysaa kadibna wax yar oo bur ayaa ku dadaadinaysaa intaas kugu filan. intaas kadib warqadii sida u saarnaa warqadan waxaa howl fududeen waaye. haddii warqada isticmaalaysid uma baahnid saxanka inaad saliid iyo subagba aad marisid. burkii waa uu noo soo qamiiray ma kala gogoon rabo waxaan rabaa hal mar wixii dhanba inaan fidiyo. hadda diyaar waaye. intaas kadib waxaa u baahan tahay subag ayuu nooc ayaa isticmaali kartaa. subaga aan hadda isticmaalayo waa Blue Band-ka si qorfihii iyo sokortiisa fiican ugu dhagaan. waxaa la rabaa inaad subagii aad kusoo tirtirtid oo aad soo marisid. subagii dhan markaan soo mariyay kadib waxaa u baahan tahay qorfihii iyo maxaan ku raadayay iyo sokortii isku soo dartay. kadibna waa ku dadaadinaysaa. bismillaahi raxmaani raxiim. burka dhan waa inaad gaarsiisid. burkii oo dhan ayaa kusoo dadaadiyay qorfaha oo ujeedaan. intaas kadib waa soo duubaysaa. saas soo duubayaa ilaa meesha u dambe uu ka gaaro. waxaa la rabaa inaad saas le usoo duubtid uu isla sinaado. hadda waa soo duubnay kadib waxaa u baahan tahay dunaa soo qaadanaysaa duntii ayaa sida ugu jaraysaa. dunta ugu fiican mindida haddii aad u qaadatid afkan dhan saa ma ahaanayo isku dhagaan fahanteen. duntaas dun yaroo waxaa la rabaa weliba oo khafiif ah ama dunta oo dharka lagu talo. kan waxaa hadda jawaan kasoo jaran fahanteen. jawaanka markaan kasoo gooyay waa sii kala fiiqay wax yaroo dhuuban ka dhigay. intaas kadib saas ayaa u dhiganaysaa. hadda waa dhigaynaa ugu yaraan 30 daqiiqo ayaan dhigaynaa. markuu soo qamiir ayaa kusoo laabanayna insha Allah. foornadii oo dansan oo aan shidnayn unbaad dhex dhigaysaa 30 daqiiqo halkaa kugu jiro. haddii banaanka u dhaaftid kor dhan qaleyl ka noqonaa fahanteen. 30 daqiiqo kadib markuu soo qamiiro ayaan kusoo laabanayna. hadda waa uu soo qamiiro ujeedaan asaga dhan isku imaaday. foornadana waa sii shidanaysaa. waxaad u geynaysaa 180 dabka kor iyo hoos 30 daqiiqo ayuu ku jiraaya. foornada kulul ayaa gelinaysaa. bismillaahi raxmaani raxiim. 30 daqiiqo kadib waa kusoo laabanay. waa kaasa maasha Allah saas ayuu kusoo baxay. asaga dhanba lagama sheekeyn karo kor iyo hoos gaduud ayuu kusoo baxay. laba xableen saxanka soo saaranaya. intaas kadib caanihiina waa kaasa isma bedelayaan. weel dabool unbaa ku shubanaysaa. yaa kaama fariisana isma bedelaan sidooda fahanteen. maasha Allah tabaarakallah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen hal qof hal group intaad awoodaan u shargareeya. waad ku mahadsantiin daawashadiina, koomentiyadiina iyo weliba dhiirigelintiina.